magacaaga iyo sida u dhacan basharaxad naga sii iyo maqdada jirto magacayga horta waa Faadimo Cabdulqaadir Xasan magacayga waa Faadimo Cabdulqaadir Xasan ahaanteedana waa 19 jir sida horta waxa u dhaceen waxa dhacday galbaha kamid ah ninka lagu magacaabo Jibriil Cabdi isoo telefoon kareeye in badan waxa maanta isoo telefoon kareeye Jibriil Cabdi wiilka lagu magacaabo in badan nationkaygu asiga aqoon jiray laakiin muusan aqoonin hormuudkayga galbaha kamid ah iyo nationkayga ana xaafadeena soo wacay xaafada aan joogin kama qana xaafad kale Balaxia joogay hormuudkayga gaar walaashay soo siisay markay soo siisay way soo wacay lambarka Afrika ayuu soo wacay labada lambarada hormuudkooda waan wada aqoonin markuu soo wacayaan ka qab telefoonkiisa waa markaan dhahay soo ka sheegay markaas aan dhahay in maxaad rabtaa wuxuu igu jawaabay in barnaamij alaab yar aad soo qaadaysaa wuxuu dhahay gaariyan ku soo diraya soo raac gaariga salaada si soo qaad markaas ayaan ugu jawaabay maxay tahay alaabta ana ku sheego doono gaariyan ku soo dirayo ku adkaysto markaas mar kale aan ku celiyaan dhahay in gabadh kale aad garanaysid baad u dirsatid alaabta wuxuu dhahay hadda gabadh kale aad igu dhow alaabta si soo qaadi karto adiga ahayn ma jirto kadib maxaan dhahay waan ka ogolaaday hayaan dhahay gaariga ayuu soo diray waan soo raacay gaarigii sidoo ii soo waday wuxuu keenay XP hore anigoon ogeyn halka laga wado iyo alaabtu waxa ay tahay XP hore markii uu keenay waxaan soo galnay guri ninkii darawalka ahaa wuxuu ii sheegay gurigaas soo jeedo albaabkiisa uu furan yahay ee gal ayuu ugu dhahay kadib waan galay gurigii markaan galay Jibriil iyo Afrika meesha wada fadhiyaan arkay Jibriil albaabka agtiisa taagnaa Afrika meesha fadhiyo ku qaylaayay bas markaan guriga u galay Jibriil isla markii albaabkii ayuu sakatooro ku dhigtay dabadeed Afrika meesha bistoolada iga soo taagay markaasaan dhahay Cabdil Casiis ma la isku ciyaarayaan hadda maxay tahay bistoolada markaasuu igu jawaabay ciyaar mahane waa dhab markaasaan dhahay maxaan iga haleeyaan dhahay oo bistoolada maanta igu qabateen markaasuu igu jawaabeen wax walba maanta jaanis aan ku heesanaa wax walbana waan ka samaysan karnaa inaan adigu waxa tahay qof kibir badan oo isla weyn markaasaan ugu jawaabay aniga waxa meeyay xilli maqrib ayay ahayd waxaan ka codsaday inaan salaada maqribka aan tukado way ii ogolaadeen horta waan tukaday markaan salaadii tukaday ayay qol fadhi ah meesha joodar soo fidsadeen dabadeedna alaabtii ay ku qaylayeen meesha geysteen kadib Jibriil Cabdi sidoo sheegay wuxuu rabay inuu shaqo aado habeenka shaqo qorna sanfilaayo soo asiga afkiis ka dhawaajiyay dawlad markaan meeshii aan ku tukaday wuxuu dhahay soo bax halkaas tag markaasaan dhahay ma yaan dhahay aniga markaad idishaan halkaas irkeysaneystaan ilaa wax walba horta way dhacaan markaan ku adkaystay in badan ay darbaxshay ugu dhigteen markay ugu dhigteen darbaxsha madaxii idil ay wareeray way qabteen meesha joodariga lagu tuuray Afrika meeshu fadhiyo bistoolada madaxayga saaray Jibriilkina sidoo doono ay geeshtay uu baxay dawladna markuu baxay Afrika meesha ku soo haray anigoo yaaban wax sameey aan garan la sharafteedin uu ku tuntay haddana waxa la gaaray xilligii cishii waxaan ka codsaday inaan cisho soo tukado waan soo qabastay cishaan tukaday dawlad wuxuu ii keenay Afrika casho markaasaan dhahay aniga casho ma cuni karo waxaan u baahanahay inaan xaafadeeda aado markaasuu dhahay xaafadaada hadda ma aadaysid waad aaday laakiin hadda ma aadaysid lagu dhahay kadib waxaan kala ka codsaday xaafad kale agtiisa u dhow inaan aado wax yar ka soo qabsado markaasuu igu dhahay si aan ugu baxsado ayaan u dalbaday in xaafadaas kale aan aado markaasuu igu dhahay maya aniga igama aqli badnidooda inaad iga baxsataa doonaysaa adigu kadib waa iska dhaafay meeshaan iska fadhiyay si uu qaylay asiga maray 6 saac soo dhaway ayuu asiga qaylaadiisii dhameystay kadibna bistoolada asigana sidoo kale ugu qabtay sidoo doonan iga yeeshtay iyadoo saas ay tahay adana Jibriil mar kale dib u soo laabtay xilli 7 saac amal ay ahayd aniga marxalad ku sugan marxalad aad iyo aad u adag ay tahay aan saan isku dhaqaajixta aan garan karin dawlad Jibriil hadana mar kale soo laabtay sidoo kale subaxdii waxaan soo baxay aniga aan socon karin dhibaatada Hasan Ilaahay ogaa markaan soo baxay ayaan waxaan imaaday xaafadeedii Balaxia tagay
markaan tagay alaabta soo qaaday meesha ka shaqeynaysa alaab horta weli maanan u soo qaadan oo alaabtii meesha laga soo qaaday lamaysan ii sheegin gaariga oo kaliya waan soo raacay adii idaacada u shaqeynaysa markaas idaacad ma ka shaqeynayn kadib bacdal soonaan idaacadda STN tagay anigu markay haddeertaan waxaan u shaqeeyay idaacadda codka haweenka ee Kasma Radio كلي أنا وحن هاد أنا أتصل لها واحد هاي إن لمن كان لبعض ورت إيكستي ورت ما أنت ليك اللي إيكستي هذا إن شرفتي دي ورت دم وصلا وأنا سكو متى ذاك الحكتو إن وحن قبل أهل قرب معي أنا كمان الكورسني أيوة كنت بجيب واحد عويل مقد بشيء واحد عوينا ما نقول إلا ما أنا أقول بس درت تعود ملحن والد خايب لها مشكلة لكم قال والدكي قدام أشياء ورت عدي ذكرنا ما بشي قرنا كم بحضر دبك هذه جارمت كمان إنه جارة حتى معقولة إنك والدك أنا قوتين فربضنا اللي صاروا إلا هاد معنا شيء عن تا هاي هاد فرين كان ما دام ورباهين مريا والدك أنا مغلان راس سلوسها ومعقول والدك ارتتا مركي أفريقيا شقي هذا أفريقيا هذه مقدسة شقي لأنك كلام سيد اللغة لما عليك ما هو إنه ننسر كالي هاي لأنك بيأسها ونوصل ده بقى منادر الدولة ده جبريل كنت شقي هذه مقدسة يو كاميرمان وياه أخوان أنت لا أقولها غير مفروض والله هرتو إن جبريل كأنك وحنا برتي كودي لولي ما انتهت وحنا كبرتي ما أنا برلهين محمد أبو بكر ما أذا أنا ما أنتص أنا وعريدي مقدسة شقي كرادينا أنا وشقي هذا سهر markaan wacay ma adaa wuxuu dhahay wiilkaas oo soo diray albaabka asaga soo gudbinay hayaan dhawo isoo donation-kayga sida ku helay kadib waan qiimeeyay jibriilkii wuxuu ilaahay waxa qof wanaagsan nuudkayga maanan siin in badan donation-kaygu iska haystay donation-ku igu soo wici jiray marna gabar walaasha isaga dhiibi jiray marna ana haystay donation-ka kadib adiga maalintan dambe fursad ku helay inuu donation-ka nuudkaygu soo helo sidaas oo igu soo wacay jibriil noqdo maalinta sanbarta aqoon kale taan u leeyahay Cabdul Casiis Afrika kor ahaan waan ka aqaan laakiin asigana aqoon hada gooni aan u leeyahay ninka sabiirate uma jirto mustaqbalka iyo qiimada iyo ku yahay ha هذا معك أصلاً دولة هذا أمني هذا horta in meeshan dawladda horta way noo dhalatay dawladda waxaan ugu baaqi lahaa in ay Cabdul Casiis Afrika beeninkan ka loogu magacaabo Jibriil Cabdi ay wax ka qabtaan marxaladda gabdhaha ku dhibaateynayaan in badan laga yaabay in gabdho kale tan inaysan u dhibaateeyaan ama hore ugu soo dhibaateeyaan maadaama hadda mustaqbalka loo yaaray oo dhib badan ugu geystay dawladda waxay codsanaysaa inay Afrika ku samayso dawladda waxaan ka codsanayaa inay wax ka qabto Cabdul Casiis Afrika inay maxkamad soo taagto